madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacad ku maray in uu dagaal ku qaadi doono dowladda Israel haddii ay isku daydo in ay saldhig ka samaysato meel ka mid ah Soomaaliya oo ah Somaliland. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hadaa hore noola joogtay like and share the video. waraysi ay ka qaaday telefishinka caalamiga ah ee Al Jazeera madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu wacad ku maray in uu dagaal ku qaadi doono foolka fool ah ciidamada Israel haddii ay isku dayaan inay yimaadaan meel ka mid ah dalka Soomaaliya taas oo uu ku sheegay madaxweynaha in ay tahay Somaliland. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya uu yahay hal dal oo dastuur leh oo ku midaysan dal ahaanna loo aqoonsan yahay oo ah dal madax bannaan qayb ka midana aysan go'i karin qayb ka midana aysan aqoonsi ka raadsan karin wadamo kale. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay kadib aqoonsigii Somaliland ay ka heshay dowladda Israel in arrinkaasi uu yahay xadgudub dowladnimada Soomaaliya lagu soo xadgudbay. waxaa sidoo kale uu sheegay inay warar xukuumaddiisa ay hayaan warar hoose oo sheegaya in arrinkan Israel ay ku qasabtay saddex shay oo ay kow ka tahay in Falastiiniyiin loo soo safriyo dalka Soomaaliya iyo in wuxuu sheegay saldhig military ay rabaan inay ka samaystaan dowladda Israel taas oo uu sheegay in ay dagaal ka xigto dowladda Soomaaliya. qodobka saddexaad ee uu sheegay ee ah Ibraahimiyada ayaa iyadu uu waxaad moodaa in uu si jilicsan uga hadlay madaxweynaha dalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in Soomaaliya meel ka mid ah Falastiiniyiin la soo barakiciyay oo laga soo qaatay guryahoodii iyo regionkii ay ka deganaayeen dalkooda ee Gaza aan la keeni doonin Soomaaliya. waxaa kale oo uu sheegay in saldhigga militariga ee Israel ay wadato uu kaliya haddii aad aragtay buu yiri saldhig military ma aha meel loo soo dalxiis tago sida hadalka isaga uu dhigay isagoo luqadda Ingiriiska ku hadlaya ayaa waxa uu sheegay inaysan ahayn meel dalxiiska loo imaado ee ay tahay in meel wax laga difaacayo ama wax laga weerarayo uu yahay saldhigba haddaad maqasho. marka arrinkan ayuu wuxuu sheegay haddii Israel ay timaado oo ay saldhig ka samaysato Somaliland ujeedkeeda uu yahay in ay wax ka weerarto ama ay wax ka difaacdo. marka isagana waxa uu sheegay inta isaga dalka mas'uul uu ka yahay dastuurka Soomaaliyana uu ku xukumayo dalka Soomaaliya oo dhan in uusan ogolaan doonin raalina uusan ka noqon doonin in ciidda Soomaaliyeed meel ka mid ah laga weeraro cid kale sababtoo ah wuxuu sheegay in saldhigaas dhismaha loo dhisaayo uu yahay inay rabaan inay qolo kale ay weeraraan. qolyaha uu sheegay in laga weerari rabo Soomaaliya oo Israel ay rabto inay ka weerarto ma uusan carabaabin madaxweynaha mana uusan sheegin laakiin wuxuu yiri waa in qof laga weeraraa saldhig haddii laga samaysto meel ama qolo laga difaacdaa. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay qodobka saddexaad oo ah Ibraahimiyada in ay saxiixaan iyadu ay tahay wax choice ah oo qof dooqiisa ah. arrinka isaga wuxuu sheegay Ibraahimiyada waa iska doctrine buu yiri doctrine-kaasna qofkii raba ayaa saxiixi kara qofkii raba ayaa iska dayn kara sidii wuxuu ka dhigay wax diin la gelayo oo kale ama laga baxayo. marka arrinkaas wuu fududeystay madaxweynaha waxaan u arkayaa aniga in ay tahay maadaama Ibraahimiyada ay tahay qorshe uu wato madaxweyne Donald Trump in madaxweynaha dalka Soomaaliya uusan rabin inay meeshaas ay ka dhalato wax friction ah ama isku dhac isaga iyo Trump. marka arrinkaas isaga uu ka yara meermeeray oo waa iska choice buu yiri qofkii raba saxiixi kara oo geli kara qofkii raba iska dayn kara. hase yeeshee labada qodob oo kale ee hore ayaa waxa uu aad iyo aad uga soo horjeestay in ay ka dhacaan dalka Soomaaliya meel ka mid ah. mar la weydiiyey haddii Israel ay timaado oo ay isku daydo inay hawshan dhamaystirato maxaad ka qabanaysaan iyo madaxweynaha waxa uu sheegay in dagaal cad ay la geli doonaan dowladda Israel haddii ay isku daydo in ay soo gaarto ama ay ka samaysato saldhig meel ka mid ah dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynaha intii tabarteena ah inaan la tacaali doono in our capacity uu yiri intii tabarteena ah waa la dagaali doonaa dagaal cad baan ku qaadi doonaa. sidoo kale wuxuu sheegay in sababihii uu ugu gooyay xiriirka Imaaraadka ay ka mid tahay arrinka aqoonsiga Somaliland iyo buunbuuninta Somaliland madaxweynaheeda iyo maalgeynteeda iyo barnaamijyadan in ay qayb ka tahay Israel saldhigeeda oo raadinta saldhiga iyo waxyaabahaas ayuu ku sheegay Imaaraadka in uu xiriirka ugu gooyay. waxaa kale oo uu sheegay inuu kaashan doono Turkiga iyo Sacuudiga oo uu ku sheegay saaxiibo dhow inay leeyihiin dalka Soomaaliya oo ay ka ilaalin doonaan
oo qaybtoodan ay ka qaadan doonaan inaysan Israel meeshaas lug soo dhigin oo aysan saldhig ka helin badda cas iyo berbera aageeda intaba. marka waxaan idin tusi doonaa insha Allah tacaala qayb yar oo kamid ah waraysigaas oo ku saabsan saddexdaas qodob oo madaxweynaha uu kala hadlay Al Jazeera bal ila daawada insha Allah. Issues that the information that we have is Israel agreed with Somaliland is bring Palestinians to Somalia and then having a base in Somalia as well. And the third was Somaliland to sign the Abraham Accord. These were the three pillars of the agreement that Israel has with the secessionist group of Somaliland. And all, well, Abraham Accord is something else. Everybody can agree, or it's a document or whoever wants. But the issue is the base that Israel wanted to have there. Why? That's the question. Why Israel wanted to have a base in Somalia? Base is not a tourist center. It's not a Riviera of tourism and all this. Base is a military, and military means attacking or defending. There is no place to defend Israel in Somalia. So what we're seeing is that Israel is preparing or positioning itself to attack someone else. We don't have Israeli security forces in Somalia yet, and we don't see them coming in the near future as well. But had that come, then that's another day and another discussion. What will you do if they do? Well, we will fight in our capacity. Of course, we will defend ourselves. And that means that you will confront any Israeli forces coming in. We are against that, and we will never allow that. warbixinteedan intaas ayaan kusoo koobayaa insha Allah tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.